madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarihii madaxweynayaashii maamul goboleedyada wasiirada xildhibaanada senatorada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta waa maalin farxad ah waa maalin farxad weyn iyo guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho oo aan rajaynayo inay maanta wixii ka bilowda ay nabad ku naaloon doonaan nabadii hore u jiri jirtay ay dib ugu soo noqon doonto waxaan rabaa halkaan inaan ka xuso far kaliya fool ma dhaqdo waxaan rabaa dhammaantiin inaad mas'uuliyadda ila qaadeen guddiga fulinta guddiga waa inuu igu daba galaa oo hawsha sidii loogu rabo ugu qabtaa madaxweynayaasha hore waxaan ka codsanayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiinta dhammaanteen mas'uuliyadana saaran roble kaliya lagu halaynin sababtoo ah doorashaad iyo dirsateen inaad idin maamulo cadaalad iyo si nabadgelyo si xor ay u dhacdo marka tan hadii la isi saaro hadda taasaan gacantayda ka baxayso marka waxaan rabaa gacan ayaad kaga baahanahay insha Allah hadii aysan waa doontii dhinac ka duleeshamin marka gacan ayaad kaga baahanahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacan ayaad kaga baahanahay maanta wixii ka dambeeyo mas'uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay'adda booliiska Soomaaliyeed oo ah hay'adda ugu sarreeyay amniga magaalada sugayso waxaan rabaa hay'adda booliiska Soomaaliyeed ciidamada booliiska Soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan amnigayga amniga madaxweynaha amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed saadarteed waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin cidna dib loo geysan in la ilaaliyo kaliya oo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed marka taas ayaan farayaa waxaan kala rabaa halkaan inaan ka sheego walaalahay musharaxiinta ah insha Allah waa idinka ballan qaadayaa inaan qofna xigsan doonin waa idinka ballan qaadayaa in doorashadaasi xor iyo xalaal ay ku dhacayso marka insha Allah qalbigiina khayr u sheega laakiin gacan idinkaga baahanahay haddaan aragiina waayo haddaan waayo hadda biyaha meeshaas ka soo galaan la socda marka waa mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed guul waa maalin taariikhi ah waa mahadsantihiin ciidamada waxaan leeyahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan goobahooda ay ku noqdaan ayaan farayaa qof ciidan oo lagu xadgudbayo ma jiro ciidanku ma lahan xaafid iyo mucaarad ciidanku ma lahan kana qaldanaa iyo kana saxsanaa ciidanku waa mid waa ciidanku waa ilaaliyaha guud ee qaranka ciidanku waa la dagaalaha al-shabaab argagixisada al-shabaab marka waxaan leeyahay ciidanka midnimada adkeeya waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet